السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتي نبا داوديال مركز فعدار مخجوكتان كسو دوادا عشر كسابسان qaababka ay u kala baxaan dadka aan xalaasha ku dhalan ee wacallada loo yaqaano. Haddaba waxaa inoo faahfaahinaya Abu Maida ninka la yiraahdo. Tawashu aan baadin lana. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Qisada dhamayso. Qisada waxay ku saabsan tahay wacallada u kala baxaan. wacalka koowaad waxaa la yiraahdaa wacal ay gabar u dhashay. Gabar markaas soo baxday oo aan weligeed la guursan ayaa uur qaaday. Wacal ay dhashay qaladkaas ka dhacay. marka way dhacdaa wacalkaas aaba looma haayo intirmana looma haayo qof looma saari karo waa ceebay tacaal meel lagu qarshamay. wacalka labaad waxaa la yiraahdaa wacal garoob dhalay. garoobka waa la furnay kala tageen daadayntii kala tageen amar ilaahay qalad baa ka dhacay. sheekadu waxay noqotay maaragtay inay uur kala qaado ninkina uuna shughul ku lahayn laakiin cudadii iyadoo ku jirtay qaladkaas samaysay. kadib waxay taagan tahay ninkii hore ayaa iskale ilmahan oo maaragtay markaan kala tagna ka baxdi ayaa uurkaanan uu soo kala taga laakiin iskuma ogey kaas qarqaraysa uu leeyahay laakiin wacalka saddexaad waxaa la yidhaha wacal gobol ku dhashay. wacalkan waxaa dhashay islaan guri joogta oo la qabo umar waxaa dhasho iibaanka ka baxday oo waa la qabaa waa la qaraabataa gashay. islaan iibaanka ka baxda nin kale seexsatay damaaragtay laafaysaas ku samaysay wacalkaas sidaas u qurashay. marka wacalka ugu effective badan ama yani ugu waxyeelada badan ugu badan waa adduunka markii la joogana ugu nasiib badan adduunyada markii la joogo aakhira ma dhayna warkayga dhigaha fura adduunyada ugu nasiib badan yahay ka soo qaad xilliga hadda la joogo dadka ugu dhib badan ee dadka caaya oo fiirsan oo ugu akhlaaqda daran leh waxay u badan yihiin noocaas. waayo taas waxaa daliil u ah dadkii naga horreeyay anaga ummadii naga horreeyay sidii nabi ilaahi maxaan ku yiraahdaa muuse xilligiisii muuse samri wacalaa ugu dhib badnaa. waxaa ku xiga jaaluud xilligii nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxaa ugu dhib badnaa ninkay aayadaha ka hadleen ee weliid la dhihi jiray ibnu muqayra وفانت أوتون بعد ذلك الزنيمين ولايري مركا وإن سلامايا وعلى السوشيال ميديا مضى كل بنا يبانكا كل بمجرى الإسرائيلي. haddaba sidaad arkaysaan saddexdaas ay u soo kala baxaan. midka afraadna waxaa weeyaan dadka social media-da sida anshax darrada ugu jira ee uu taabtay wadaadku. haddaba cidda aad u malaynayso inay yihiin dadkaas iyo dadka naqan kara hoos noogu soo qor commentiga. annagu qof sheeg ku dhihi mayno laakiin cidda ay kula tahay oo aad isleedahay waxa weeyaan tilmaamahaas ay ku sifoobeen iyo wacalnimada uu sheega Abu Maida hoos noogu soo qor commentiga. waa maasantiin share comment iyo follow intaba isugu dara subscribe tana noo saara. waa maasantiin.